بسم الله الرحمن الرحيم نبض وضيال كسو دوادا وردقدقة بريتولة oo ay taariikhdu tahay 20ka bisha toddobaad 2024 ayaa waxaa la soo warinayaa xildhibaanka ka tirsan golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Maxamed Abiib in uu ku wajahan yahay gobolkii laga soo doortay ee Awdal. xogaha soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan بريتولا إن أي جيران كوحو أبابلن oo doonaya in caalanka Soomaaliya soo qaataan kadib isu soo baxa lagu soo dhaweynaya Maxamed Abiib ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in uu dadkiisii u tagi doono oo uu la tashi la soo sameyn doono la tashigaas oo macno badan sameynaya ayaa haddana waxa ay xogaha helaya sheegayaan in ay jiraan calamaan ama waxyaabo ka soo horjeeda qarannimada Somaliland oo calanka Soomaaliya ugu horeeyo oo lagu dhextalay gobolka Awdal. kooxo gaar ah oo abaabulan oo laga soo abaabulay qurbaha gaar ahaan wadamada Yurub iyo Latin America ayaa waxaa la soo warinayaa in ay jiraan oo Baritola la rabo in ay soo qaataan calamada Soomaaliya iyo calanka Awdal. xoguhu waxa ay intaa ku darayaan in Maxamed Abiib Baritola uu doonayo in ay ciidanka Somaliland iyo ay isku dhacaan dadka shacabka ah ee u soo baxaya isku soo dhaweyntiisa. haddaba saaxiibayaal sida aynu ognahay Maxamed Abiib ayaa waxa uu saxaafadda waqtiyo hore oo ay shalayba ugu dambeysay ayaa waxa uu ku aflagaadeeyay madaxweynaha qaranka Somaliland Muuse Biixi Cabdi isaga oo ku tilmaamay nin aan aqoon lahayn oo dib jir ah. waxaa jirtay oo kale in ciidamada qaranka uu ku tilmaamay in aanu jihaad ahayn dagaalkii Laascaanood ay ka qayb galeen jihaadkuna uu yaalo wadanka Falastiin ee Israa'iil ay dagaalku ka socdo. haddaba annaga oo idiin soo gudbin doona hadalladii dadka reer Boorama maanta ay saxaafadda ka yiraahdeen iyo soo dhaweynta Baritola Maxamed Abiib. haddaba daawadayaal maxaa looga baahan yahay Baritola ciidanka qaranka Somaliland ama ciidanka nabadda sugaya ee ku sugan gobolka Awdal? waxaa looga baahan yahay in ay shicibka u turaan dadkani waa dadkoodii waxaana arrintan ay damacsan yihiin dadka qurba joogta iyo kooxahan kudladaha iskugu xidhan ee doonaya qarannimada Somaliland ka soo horjeeda jecelna inay Somaliland dumiyaan oo ugu horeeyo xildhibaan Maxamed Abiib iyo qolyo kale oo dabada ku wato. haddaba ciidanka Somaliland maxaa looga baahan yahay? ciidanka Somaliland waxaa looga baahan yahay arrintan waa arrin aad serious ah ama arrin aad u khatar ah oo indhaha aad lagu hayo. waxaa looga baahan yahay inay dadkooda u turaan oo si dabacsanaan leh ula dhaqmaan. daawadayaal waxaanu idiin soo deynaa qayb ka mid ah hadalladii maanta kulula ee ay xildhibaan Maxamed Abiib taageerayaashiisu ama dadkii soo doortay ay la wadaageen saxaafadda iyagoo hadalladooda si wata waxa ay yiraahdeen sida tan. maanta halka waxaan baa uga diray beesha Sheekh Saxaaq oo gardarradoodu iyo dhaga hadalkeegu nagu farabateen oo marba maxaan ku radayna ka yar haduu raadsanaysa Maxamed Abiib codkayagu ku fadhiya haddaan ree Awdal nahay annaga dooranay Sheekh Saxaaq ma dooran coday leeyihiin kuma fadhiyo xildhibaanadoodu la mid yahay madaxweynahoodu la mid yahay ammaan hana sir haddii ammaan ma siin waayaan annagu Awdal baanuna ku dawladda dhisana dawladdu waanu nacnay Sheekh Saxaaq baana nuu nacnay nuuga tagana ammaan hana la sii xildhibaanka saddex xildhibaan baa sheegaya ha soo dareeraan hay maadaan gobolkii laga doorto gobolkii looga cadeeyay ha looga yeedho hay maadaan haddii xil la qaadayana oo xasaanad la qaadayana madaxweynaha meesha ku gaboobay xasaanad ha laga qaado haddayna qabiyaalad ahayn anagu reer gobolkan Awdal dadweynaha ka soo jeeda haddaan nahay in aanan raalli ka ahayn in xildhibaankayga laga qaado xasaanada wax dambiya oo galay oo laga qaadaana meesha ma jiro waxay indho arkeen bil ku gooyaan xildhibaankayaga ma ogolin wax ku ciyaara in dib loo celiyo ma ogolin diyaar baanu nahay waan garab taaganahay waxa la wuxuu go'aamiyay waan ku wada raacsanahay ma yeelayna xildhibaankayaga annaga doorno u fadhilo u taagan horta in xasaanada laga noqdo waa qalad mana ogolin annaga dooranay annaga habeen u taagnayn annaga maalin u taagnayn ilaahayna kama qaadin lagamana qaaday mana ogolaanayna annagu waa annaga dooranay annagaana jecel annaga ku jecel Maxamed Abiibow balse u aragtaa xildhibaan Maxamed Abiib oo xasaanadii lagala noqonay waxaan u arkaa khalad waxa weeyaan shicibkii doortay baan nahay gobolka reer Awdal ma ogolin mana qaadan karno
haye waxa weeyaan xildhibaanka meesha diganay annaka codkayaga la weydiinayaa gobolka awdal uu ka soo baxaa la weydiinayaa taa ma ogolin annagu haddaan nahay shicibka reer awdal iyo hooyooyinka annagaa ninka soo saarnay annagaa dooranay 13 xildhibaan haddii mid laga qaado xilka 13 kuma haymanayaan gobolka awdal maxamed abiib waa nin laga soo doortay gobolka awdal waa nin u jooga gobolka awdal waxa saanada laga qaadi karana ma jirto waxaan ogolnahayna ma jirto waa nin gobolka awdal u dhashay beesha dhexe ee uu wada leenahay dawladda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland naga wada dhaxayso annagu waxaan wada leenahay dawladda haddii aanu isku fahmi weyno gobol baan awdal baa la naynaa Soomaaliland waa la wada leeyahay shakhsi ma laha laakiin waxaan arkaynaa inay beeshii dhexe ay kelideed ku biyo shubatay inay agajugleyn hayb kala sooc kala dil faqo ka hadlo cabudi inay leedahay ma aburin kartiin xusbigan wuxuu ku yimday ninkani cod buu ku yimday ninka ree awdaleed kelidii kala furbaxdeen iyo awdal oo dhan ee leedihiin qabiil buu dabada ku wataa iyo ree hebel waa qabiil oo ree hebel gobolkan wuxuu ka soo jeedaa awdalna 13 xildhibaan baan ku leenahay iniga dhowr iyo 60 nin maraya caanaana iniga maxay maanta daadanayaan anaga waxba naga daadanay waxba kuma qabno nabadgelyo kaliya ku qabnaa gobolka sida ay u gooday maxay haydaanayeen laas caanood ayaan anaguna uga gooynaa 13 xildhibaan baa la iska soo dareeriyo ma ana xildhibaan kaliya sheekadu waa 13 xildhibaan waa mid kaliya Allaah xildhibaan Maxamed Abiib dadkaaga ku jecel oo dalkaaga ku jecel oo ciidaaga ku jecel oo ummadaada ku jecel oo reewda oo dhan baa ku jecel waxaan ku leenahay dalkaaga kaala wadankaaga kaalaya wadankiina kaalaya mid kale waxaan leeyahay Muuse bixiye dawladda Soomaaliland midnima mid lagu yahay haddii gobolka awdal inta ka dhex joogta aad ka qafooftaan oo eegtaan dib u eegtaan taanaguna xamaasadeedu aad baa u kici haddaan nahay dhalinyarta gobolka awdal maxaa anagu waxaan raacsanahay Maxamed Abiib waxaan raacsanahay haddii wax la wada yeelan waayo Soomaaliland ma noqonayso meesha laga aasaasay Soomaaliland gobolka awdal haddii wax la wada yeelan waayo laascaanood imka way goosatay faratoon kursigiisana anaga xaq u leh waxa weeyaan haddii Maxamed Abiib la dayni waayo oo buugiisa mar walba la kicinayo laga xadhi waayo anagu waxaan nahay goon ka soo noqonaynaa arkay tagtay laascaanood baan maraynaa maanta laga bilaabo Maxamed Abiib geedna xidid la'aan ma baxo gobol awdal la yiraahdo oo Soomaaliland miisaan weyn ku leh ayuu ka soo jeedaa hasaarad bulsho sitaa Muuse ma aha nimad magacawday dikreeto kumaad keenin dad buu xasaanadoodii iyo sharaftoodii wataa rag buu matalaa gobol awdal la yiraahdo oo Soomaaliland haddii laga waayo ayna Soomaaliland hayn ayuu matalaa waa halkii Soomaaliland lagu aasaasay daawadayaal kuwaasina waxay ka mid ahaayeen qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boorama intaynu barnaamijkeena xiga ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo daawada markii kugu horeysay haddii ay tahay channelkeena soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad channelkeena subscribe saarto